qaar ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadda qunyardega gaar ahaan degan xabaalaha sheedaha oo ka tirsan degmada Ibraahim Koodbur ayaa ka hadlay dhibaatooyin kala duwan oo u geystay roobkii shalay galab ka da'ay magaalada Hargeysa. Dadweynahan ayaa saaka waxa ay cabasho xooggan ay ka muujiyeen daadad ay sheegeen inay ka yimaadaan dhanka xaafadda sheedaha oo laga soo leexiyay halka ay markii hore mari jireen oo ah wadadan, balse hadda loo leexiyay dhanka xabaalaha sida idiin muuqata kadib markii ciid la dhigay halkii markii hore ay mari jireen daadadkaasi. haddaba roobkii shalay galab ka da'ay magaalada Hargeysa daadadkii ka dhashay waxa ay dhaawacyo kala duwan ay u geysteen guryo ay degan yihiin dad danyara kadib markii uu soo jeebsaday dheerka ku xeeran xabaalaha sheedaha. sidoo kalena daadkaasi waxa uu baabi'iyey sida idiin muuqata xabaalo badan oo ay ku aasan yihiin dad meetiya. dadweynahan ayaa saaka waxa ay sheegeen in marar badan ay la kulmeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda hoose iyo kuwa gobolkaba ilaa haddana ay jawaab ay ka sugayaan, balse saaka waxay dadweynahani baaq kala duwan ay u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maayirka caasimadda Hargeysa waxayna ka codsadeen in si degdeg ah ay u soo gaadhaan. laakiin dhibaato badan bay nagu haysaa haddii aan qoyar deganahay. waxa weeyaan biyaha aad arkaysaa roobkii soo da'aba waanu ka naxnaado waxaan ku wax dhibaatadaas mu noo geystaa. dawladdiina cid kama hayno, dawladtii hoosena cid kama hayno. ninkan maayirka horta lagu sheegay anagu meel maayirka yahay ma garanayno. xabaalihii ummadii oo dhan ku jirtay ee bahalka sheedaha biyihii xagga ka mirjay rag baa inta xagga wadoodii dhex dhisteen biyihii gebigeeda soo leexiyay. xabaalihii biyihii ka soo booday iyo kuwii laagta ayaa gebigeeda anaga halkaan noogu yimaada. yoom wal oo ilaahay roobkaasi keenaba dhibaatadaas noo geystaa. yoomkan wax dhignaba saas uu la tagaa. imika ka aqalkii xalay halka intuu kaga dhuftay waxa kale uga booday. wax walba isla mashquulay xaq reeraha ilaa kuwa iga horeeyay saas wada gooy. xaafadan ahdaanu nahay qunyardega ama ka tirsan degmada Ibraahim Koodbur ee xabaalaha hore buuxsamay afkooda degan dhibaato fara badan baan haysa. halkan waxaan isugu nimid inaanu ka hadallo dhibaatadan haysanaan marka hadinoo laba ka hadinoo dhowr jeer ka hadalay cidina waxba nooga qabanin. dawladda hoose iyo dawladda dhexe labadaba waan u gudbinaynaa. halka maatada degan iyo dadka degan ee danyarta ah waxa ku furan daad ka soo dhaca buuraha sheedaha oo dhan oo xabaalaha dhexdooda meel looga sameeyay ka soo baxaan. ciidii xabaalaha sameysay ee deerka ku xidhaan u banaysay inay halka biyo ka soo baxaan. waxa weeyaan dadkaasi male awood iskaga qabtaan. waa dad danyara biyihiina labada dhinacba haday tahay dhinaca bariga iyo haday tahay dhinaca galbeedka labadii waxay ku soo shumeen xaafadda qunyardega. maatadaasi waxay qabtaa dhib fara badan. xabaali bay qodeen, guriyii baa dumay, dadkii oo dhan baa dhibaataysan. waxaan dhawaaq dheer ku sheegaynaa in loo dhaga nuglaado oo arrinka ay wax ka qabato xukuumadda iyo dawladda hoose ay khusayso arrinkani. waan salaamaya. anaga dhib badan baan haysata. hore waa loogu sheegay TV badan waa la naga duubay, dad badan way arkeen, waxba sala nooma qabanin. marka anagoo kaliyata maaha dadkii xabaalaha ku jiray waa biyaan wax naga yimaadaan sheedaha. dadkii ifka joogay iyo dadkii aakhira joogay labadiiba wayna dhibeen. xabaalaha markasta waxay soo qadaan lafahooga. waxaan halkan cabashada si dheer uga gudbinaynaa biyaha xabaalaha soo dhex maraya ee dadka meeytida soo saaraya maalin walba oo halka dhibaato weyn ka jirto oo dadkii kalena ay afa ku hayaan ila si dhaqso ah wax looga qabto oo biyaha cidii wax ka qaban kareysaba ay ka qabtaan. inuu si khayr looga rajeynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo fududeeyo. wada garanayaan wax xabaalo ay ku aasayn ilaa kumaankum qof oo abayaasheen awowyaasheen walaalaheen yani ehelkeen iyo dadkeen ayaa ku aasan. waxaanu u sheegaynaa inuu soo gudbinaynaa dadka mas'uuliyiinta oo xukuumaddu ugu horeyso madaxweynaha maayirka magaalada iyo ciddii kasta wax ka qaban kartaba iyo waxa weeyaan dadka dadweynaha ee shacabka ee dadku way meesha ku aasayin. xabaalahaasi aynu taagannahay waxa dhibaato weyn ku haya nicmooyinkan ilaahay ee roobabku markay daan daadadka ay soo rogaan ayaa mashaakil iyo dhibaato ku haya. waxaa jira meel ay ka soo galaan biyuhu oo waxa weeyaan marka deyr loo sameeyay kolkii hore dhulku iska banaanaa loogu talagalay. laakiin biyaha halka loogu talagalay markii hore waxay keeneen mashaakil iyo dhibaato ay ku keeneen xabaalihii. imika halka aan taaganahay xaggan waxa weeyaan marka waa xabaal, waxaas waa xabaali oo degay oo biyo dul mareen. xaggan kale xabaalayga xiga wadarka san dhagaxaanta halka taagan waxa weeyaan marka mashaakil aad iyo aad weyn ayay biyahaas xabaalaha ku hayaan. dadka dhintana xuquuq bay leeyihiin, dadka nool xuquuqda ay leeyihiin mid la mid ah ayay leeyihiin.
waxaan leeyahay madaxweynaha iyo maayirka iyo ciddii kale lamidaba arrintaasi beritoole inaad taxsi noo dirtaan markaanu dhimanno waxa nooga dhow maanta wax nala qabto xabaalahaasi way baabeen waa aragtaan halkaa dhinac walba way naga xigaan halkaa markaan sii eego qaar anigan aaskooda ka mid ah saacadda ma garanayo 1,500 oo qoys oo ka horeeyana qaar baanu ubadkii xalay ka ururnay cabdiweli yuusuf cumar bulsha TV magaalada Hargeysa shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-dahab